bulshooy qaran bile dulqad badani abooga dhayo baraaniyo nabad bulshadu waashe birmadi xasan sheekh ku doorta baraaru بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ummadda Soomaaliyeed meel kastoo ay joogto waxaan maanta mar kale u soo hor istaagay inaan la wadaago waxyaabaha howlaha hortiminta leh ama muhiimadda leh ee aan rabno dalka inay muxuu ahay direction ama jihada dalka inuu dhaqaaqo aan rabno sida la wada ogyahay dalkeena dadkiisa 70% in ku dhow waa dhalinyaro da'yar ah oo wiilal iyo gabdhaba leh meel kastana ku nool dalka waa mustaqbalka dalkan iyo muxuu ahay awoodda dalkan meesha ay taalo waa meeshaas sidaas daraaddeed maadaama mustaqbalkeena uu saaran yahay dhalinyarada dowladdeeda waxaan rabaa in ay hortiminta barnaamijyadeeda hortiminta ay ka mid noqoto horumarinta dhalinyarada dhinac walba ayaan rabnaa inaan u horumarino dhalinyarada waxaan rabnaa xagga aqoonta xagga fikirka xagga maxaan ku irahday fursadaha intaba inay ka hormaraan laanna waxaan aaminsanahay dhalinyarada Soomaaliyeed markii fursad la siiyo in ay cid walba ka fiicnaa karaan inay cid walba ka horumari karaan inay cid walba ka awood badan karaan wax soo saari karaan sidaas daraaddeed maadaama dalkani ay fursadaha ay ciriiri iska noqdeen dowladdeennuna ay muddo dheer dowlad nugul soo ahayd welina ay dowlad nugul tahay waxaan rabnaa inaan markaan aan xoogga isugu geyno sidii dhalinyarada iyo horumarinteeda dhinac walba ah looga fikiri lahay waxaan rabnaa galabta rabaa inaan ku dhawaaqo inaan furayno haddii alla yiraa hindisaha horumarinta dhalinyarada qaranka ama dhalinyarada Soomaaliyeed oo aan rabno talada dalka inay wax ku yeeshaan jihada dalkan uu aadayo waxyaabaha la qabanayo waxa mustaqbalka ee soo socdo ay la wada hiigsanayo dhalinyaradu inay doorna ku leeyihiin talana ku leeyihiin muhiim maaha inay titles iyo xagga iyo ka yeeshaan laakiin talada mustaqbalka qaabeyntiisa inay dhalinyaradu ay aasaas u yihiin saldhig u yihiin ra'yigooda iyo caqligoodana uu yahay midka lagu soconayo oo aan anigu aaminsanahay inay yihiin dadka ugu habboon ee inay caqligaas dhiibtaan waxaan abuuri doonaa ayadoo dalka guud ahaanba saaxada siyaasadda inaan furno aan rabno oo sida dastuurkeena uu caddaynaya aan rabno in xuquuqda isu imaatinka xaqa wada tashiga xaqa maxaan ku rahay afkaarta xorta ah oo madax bannaan dadku inay gudbiyaan ayadooba dastuuri ay tahay meel taallo haddana inaan abuurno jawi dhalinyaradu isugu imaan karaan ra'yigoodana ay dowladnimada iyo qaabeynta mustaqbalka Soomaaliya oo dhan ay ku beerin karaan shirweyne qaran oo dhalinyarada Soomaaliyeed ah dal iyo dibad meeshii ay joogaanba inay wakiiladooda isaga yimaadaan oo ay ka shiraan ajendayaal mucayana oo ku saabsan qaabeynta mustaqbalka ummadda iyo qaabeynta mustaqbalka dalkan waxaan rabnaa markaa in dhalinyarada Soomaaliyeed meel kasta ha joogaan ay u diyaar garoobaan muxuu ahaay madaladaas ama shirweynahaas qaran oo aan mar dhow deydkiisa soo cayimi doono soona sheegi doono wuxuu ka mid yahay waxyaabaha hortiminta u leh dhalinyarada ujeedooyinkeedana uu yahay in xiriirka dhalinyarada iyo dowladdana la xoojiyo xiriirka dhalinyarada dhexdooda iyaga ah gobollo kala duwan ha ku noolaadeen dalal kala duwan ha ku noolaadeen mihnado kala duwan iyo maxaan ku rahdaa ha ku jireen iyo inay yani iska warqabaan oo dhalinyaro ahaan dhalinyaradu ay iska warqabto dhalinyaro ahaanna xaqa ay leeyihiin iyo danaha ay leeyihiin iyo waajibaadka dalka uu ku leeyahay ay fulinayaanba wax ay ka tashadeen oo ay iswarsadeen oo ay ka doodeen oo isaga warqabaan inay noqoto ayaan muxuu ahay aad iyo aad yaan uga talinaynaa una rabnaa inaan ka sheegno shirweynayaashu waa isdaba socon doonaan dalka gudihiisa marba meelaa lagu qaban doonaa marba meel ayay dhalinyaradu isugu tegi doonaan laakiin albaabkaasi maantaan bilownay waa furan yahay
waanu soo socdaa haddii alla yiraa insha allah. taas marka aan intaas aan ku soo koobo, waxaan rabaa kale inaan ayadana galabta fursad waayo aan ka dhawaajiyo dadka Soomaaliyeed. ma aha dhalinyarada oo keliya ee dadka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan in la abuuro fursadahaas oo ah shaqo abuur, hindise shaqo abuur ayaa waxyaabaha hortebinta leh oo dowladdeeda xukuumaddeenu inay la timaado aan rabno maalmaha usbuucyada bilaha soo socdo waaye. waxaan rabnaa inaan abuurno fursado in dowladda loo wada shaqeeyo oo dhalinyaradu ay wasaaradaha iyo meelaha bes ma aha. dhalinyaradu waa inay iyagu lasadooda ay awood leeyihiin oo ay shaqo abuuraan, dhalinyaro kalena shaqo u abuuraan laftooda. waa midda aan lahayn dhalinyarada haddii fursad la siiyo wax badan ay qaban karaan. dowladdu waxay ka shaqeynay dhalinyarada Soomaaliyeed inay fursad siiso si ay ula yimaadaan muxuu ahaay arrin ibdaaciyaad ah ama creativity-ga ku jirto, xoogga iyo awoodda ku jirto, tabarta ku jirta dhalinyarada inay la yimaadaan oo ay kula yimaadaan hindisooyin aqoon ku salaysan oo ay ku samaysan karaan shirkado ganacsi, initiative ama hal abuur ay ku dhaqangeli karaan. dowladduna ay gacan ku siiso si koox kastoo dhalinyaraha isu tagtaaba koox kaloo dhalinyaraha ay fursado ayagana ugu sii abuuraan oo ay usii socoto. waxaa intaas dheer muhiimadda koowaad oo dalka xoreyntiisa ah ayaa hadda noo horeysa mar inaan dhalinyarada xoogga isla saarno dalka sidii loo xoreyn lahay si aan u soo jiidano investmentiga caalamiga. dowladdani waxay ka shaqeyn doontaa inay abuurto jawi oo maalgelin caalami iyo maalgelin Soomaaliya, hantida Soomaalidu ay leedahay ee dibadda jirta, hantiilayaasha Soomaalida ee la cabsaday hantidooda la cararay ee dibadda geeyay inay soo celiyaan oo dalka ay ku soo celiyaan oo ay ka shaqeeyaan si fursado loogu abuuro dadka Soomaaliyeed guud ahaan, shaqo loogu abuuro, dakhli loogu abuuro. arrimaha amniga ee aan sheegaynahay waxaa qayb weyn oo muhiima ka ah amniga quudka. amniga quudka ama waxa afka qalaad lagu yiraahdo food security waa meelaha aan rabnaahe dhalinyarada inay shaqana ka abuuraan, ganacsina ka abuuraan, dalkana ay u abuuraan, u sameeyaan kalsooni buuxda oo ku saabsan in amniga quudka xaggiisa dalkani dhinac walba marka loo fiiriyo, badda iyo bar haddii la yihaaho xoolo iyo beer haddii la yihahdo waddan qani ahaanahay, haddana gacantaa noo hoorsan maalin walba. gacan hoorsigaas inaan ka baxnaan rabnaa oo aan dadka Soomaaliya shaqo. dowladdani waxay ka shaqeynay in ay maxaanku irahdaye qoys kastoo Soomaali ah oo fursado dakhligiisa kor uu kii hadda dakhli lana kor uga kaco, kaan hadda dakhli haysanina uu dakhli u abuurmo. inaan ka shaqo fursad shaqo abuuris ee loogu abuurayo dadka Soomaaliyeed guud ahaan. markaan niraana dadka Soomaaliyeed guud ahaan inta ugu badan waa dhalinyaro. hadda mar kale dhalinyarada ama haddana marka dalka Soomaaliya tallaab kastoo qaado dalka la xoreey haddii la waa dhalinyaro. dhaqaalihiisa kor haddii loo qaado la yiraahdo waa dhalinyaro. aqoontiisa iyo adeegiisa bulsho kor loo qaado haddii la yiraahdo waa dhalinyaro. dhaqaatiir haddaan u baahannahay, injineer haddaan u baahannahay, kulli dhalinyaro ka imaanay. dhalinyaradu marka xoogga noocaas ah in fursado la siiyo oo ay dalkooda iyo dadkooda wax ugu qabtaan. yaan loo wada hanqal taagin in dowladda loo shaqeeyo. dowladduna furasku way furi doontaa, way ballaarin doontaa in ay muxuu ahay shaqaalo badan oo dowladda u shaqeeya la qaato. laakiin waxaan rabno waxay tahay inta dowladdani ay abuuri karto shaqo ah waxaa 100 jeer ama 1000 jeer ka badan inta shaqo ee privateku uu abuuri kara ama hadda uu hayo. shaqaalaha dowladda ilaa 5,000 iyo jarjar waayaa la yiraa. privateka maanta jira meeqaa u shaqeyso, meeqa kunaa u shaqeyso, waa 2 jibaari, 3 jibaari, 4 jibaar waay. marka mar walba waxaan xoojin doonaa privatekana waxaan rabnaa privateka yaryar oo ay dhalinyarada hormuud, shirkadaha yaryar ee ay dhalinyaradu ay ka tahay hormuud, maaha kuwa waaweyn oo muxuu ahay balaayiinta doolar haysta maaha. kuwa yaryar ee hadda jirana in lasii dhiirigeliyo haddii ay adeeg hayaan iyo hadday wax soo saar hayaanba. kuwa cusubna in la abuuro oo ay ku soo biiraan saaxada haddii ala yiraah. sidaas daraaddeed
rabnaa dhalinyarada Soomaaliyeed meel kastoo joogaan ha u diyaar garoobeen dalkan in ay hore u dhaqaajiyaan, ha u diyaar garoobeen in ay dowladooda gacanta inta qabsadaan fursadaha uu dalkan leeyahay oo dhan inay gacanta ku dhigaan ay ka faa'iideystaan. maanta haddii aanay ayaga sidaa yeelin meel banaanaanaysa ma jirto. fursadihii inta soo baxaan haddii ay waxaan saan u lehna waxaa ka mid ah fursaa abuur maayo mar dhow. fursadahaas abuur maayo haddii aanay dhallinyaradeenna aanay buuxin oo aanay qaadanin, meeshu cidlo ahaan mayso, waa la soo buuxinaa. waxaana soo buuxinaya dhallinyaro kale oo maxaan ku irahda ajnabi ah. odayaal waayeela nooma soo shaqo tegi doonaan. waxaa noo soo shaqo tegi doono generationkan meesha taagan, wiilashan iyo gabdhahan iyo inta la da'daa lamidkaa la aqoontaa xataa yaa noo soo shaqo tegi doono. marka annagu aan u xaydxaydano una diyaar garowno furaskaas inaan annagu buuxino, sidoo kale inaan abuurno. furaska annagaana laga rabaa inaan abuurno. dowladduna fursadahaasi ayaduna dowladdu wixii fursay abuuri karta, laakiin yaanan meel loo fadhiisaninoo la dhihin dowladdaa soo wado. idinku inaad abuurtaanaan rabnaa. dowladduna way abuuray si wax badan ay u noqdaan. dowladda bes haddii la sugo dowladdu fursa ay abuuray waa kooban yihiin. dhalinyarada keligeed ha loogu samey inaan dhahno oo furaska abuura ayagoo koobnano inaan isku darnaan rabnaa. labada xoog aan isu geyno oo aan furas badan oo dhalinyarada Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan miyi iyo magaalo ay helaan oo meel walba leh. kan miyiga joogana waa inuu furas helaa, loo abuuraa fursado. kan magaalada joogana waa in loo abuuraa. kan xeebta ka shaqeeyo kalluumaysiga ama khayraadka badda ka shaqeeya, kan khayraadka xoolaha ka shaqeeya, kan maxaan ku raha beeraha ka shaqayn doono, kan ganacsiga ka shaqayn doono, dhammaan waa inaan muxuu ahayo maxay ahayd gabagii dheeraayo abwaankii Soomaaliyeed dunidaba ma joogto dowlad wada karaaniya. yacni ummad xafiisa wada fadhido oo warqadtiin baranayso midna warqad saxiixayso ma dhici karto. dunida ma wada noqon karto. waa tii shaati madow haysataa oo maxaan ku irahdaa overall gashan oo gacmaha iyo maxaan ku irahdaa jirka olyo ku leh oo shamiinta dhismo iyo dhiiqa ku leh oo socoto waaye. markuu shaqada ka soo baxana inta isnadiifiyo suudkiisa soo xirto muxuu ahay magaalada yimaada asiga oo nadiif oo muxuu ahay suud fiican xiran kara ama iibsan kara. aad iyo aad ayaan dhalinyarada Soomaaliya meel kastoo joogaan leeyahay, dhalinyarooy dalki iyo dadki iyo deeqa badan ee dhex yaallaba idinkay marti idin yihiin. yaan laysku halaynin, yaan laysgaabsanin. xoog iyo awood iyo aqoon iyo caqli dadka dunida ku nool haddaadan ugu saraynina uguma hooseysaan. nafsadiina ku kalsoonaada, dowladdiinana ku kalsoonaada, dalkiinana ku kalsoonaada. horay u dhaqaaqa haddii ala yiraha beri iyo beri dambaba haddii ala yiraha. aad iyo aad aa umahadsantihiin. wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. bulshooy qaran bile dulqad badani abooga dhayo baraaniyo nabad bulshadu waashe birmadi xasan sheekh birmadi xasan sheekh ku doorta baraaru birmadi xasan sheekh ku siiya bogaadi birmadi xasan sheekh war ku doorta baraaru birmadi xasan sheekh ku siiya bogaadi birmadi xasan sheekh su'aali bulshooy dalkoo burburaya kuma ka badbaadshay bawarkii qarankiino banaadir ku kooban xukunka yaa baashay islay federaalka birmadi xasan sheekh ayaa ka badbaadshay oo birmadi xasan sheekh islay federaalka والسؤال بشوي دلكو بربوريا كما كبداتشي باوركي قارنكينو بنادركو كوبا حكم كيا باشي إسلي فدرالكا برمادي حسن شيخ أيا كبداتشي
وبرمادي حسن شيخ مثلي فدرالك برشوي قارن بيلي برمادي حسن شيخ عدكاقا كبيري برمادي حسن شيخ عركالي هب حمانشو برمادي حسن شيخ إنو بدلو عبايرة تيرين برمادي حسن شيخ برمادي حسن شيخ والدور تبرارو برمادي حسن شيخ سيا بوغادي برمادي حسن شيخ عكو الدور تبرارو برمادي حسن شيخ وسيا بوغادي برمادي حسن شيخ بيان شددو دنيا بينبا اسبال أردية هل ياي بسليو بلا شحيتا واللي تكال بريو ما انت كال بحي وبرشاد حسن شيخ ايي وبكتيه وبي سعود كينا برمادي حسن شيخ بيان شددو دنيا بينبا اسبال أردية هل ياي بسليو بلا شحيتا واللي لك لبريو ما انت كالبحي وبرشاد حسن شيخ ايي وبكتيه وبي سعود كينا برمادي حسن شيخ